ugaas cabdiraxmaan xaaji daahir iyo odayaal kale oo ka mid ah reer berbera ayaa ka hadlay dhul habeenkii xalay ahaa rabshadi ka dhacday oo weliba xabad laysku adeegsaday dhulkaasi oo ay sida ay sheegeen ugaaska iyo odayaasha la socda uu lahaa axmed yaasiin cali sheekh cismaan nuur waxaanay sheegeen dhulkaasi in iyadoo aan laga heshiinin hadda dhismo uu ku bilaabay dabcanna sidoo kale waxa ay baaq u direen madaxweynaha somalilan iyo wasiirka arrimaha gudaha waxaanay ka dalbadeen in arrinkaasi lasoo kala dhex galo waxaana ka mid ahaa odayaashan iyo ugaaska hadalkoodii sida tan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dulmiga agtayda waan ka xaaraam yeelay baa ilaahay dhexdiinana waan ka xaaraam yeelay baa ilaahay dhahay isdulmiina halkan magaalada berbera waxaa ka socda dulmi weyn waxaa ka socda money power in ninba ninku ka dhaqaalaa badnaa iyo ninba ninku xukunka uga dhowaa in dhulkiisii lagu boobo dhulkan naga dambeeya waa dhulkii ilma sheekh cismaan nuur weeyaan axmed yaasiin cali sheekh cismaan nuur ayaa iska leh faylka aan hayaa waa 86 bursadaa siiyey sidaa laajigeed maanta waxay isu bahaystay raggii dhaqaalaha berbera odayaasha waxaa dhaqaalaha lahaa muuse xirsi iyo maayarka magaalada berbera ayaa isu bahaystay inay dulmaan oo dhulkooda qaataan sidaa laajigeed waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaanu gaadhsiinayna wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka xogeenka arrimaha gudaha waxaanu gaadhsiinaynaa halkan cadaalad ma taalo madaxweynaha yidhi sharciga dadka ka sareynaya madaxweynaha yidhi cadaalad ayaa maanta laga sugaya madaxweyne in la isdulmo oo dadka masaakiinta iyo muxtarimka iyo ahlu karamka la boobo oo dhulkooda la qaato oo dhulkooda la kala iibsado arrintaasi waa arrin aan cidina aqbalaynin sidaa laajigeed waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga fadhinaa alcadaala cadli baa wax joojo wax kale rag deeqo dadka lagaga eedbaxo nin doonay heli waa kana aanu imika taaganahay waxa laga dhisayaa guriga waa la isku qabsaday waxa le axmed yaasiin cali sheekh cismaan baale seeskii buu dhigay seeskiisii waa la dumiyey waa taa laga dhisay in dayrka la wado oo adinka arkaya dawladdiina way isku raacday in laga qaado meesha dawladdii hoose ayaanu tustay sharcigii wuxuu yidhi sharcigiinu sharci maaha taayadaana horraysay hore markii la isugu yimaadeen wuxuu yidhi sharci ma haysto muuse dalb sharci ma haysto buu yidhi iminkaa loo sameeyey dee arrinkaa waxa laga qabto dulmiga intaa leeg dawladda madaxweynaha wasiirka daakhiliga wasiirka amniga waxaa intaa ka horraysay ninkaa muuse xirsi la yidhaahdo wasiirka imika la yidhahdo cabdilaahi abakor 2012 inuu yidhi muuse uu ka garbax meesha inuu laba suldaan noo diriyay 3 caaqil inuu muuse gar qaadan waayo uu ka kacay golihii uu diiday waxaanu leenahay dee dulmigaas waa arkaysaan dawladdu waxaa ka qabataa daakhiliga maxamed kaahin axmed wasiir ku-xigeenka amniga maxamed muuse diiriye waxaanu u sheegaynaa arrintaa maanta aragtaan ee dhiskaa la dhisay aragtaan eedhisigiskii axmed cali sheekh cusmaan leeyahay qabsatay uu maanta sharcigiisana kaa yahay oo maanta ninkii maayarka ahaa maayar maaha waa ninka gobolka xukuma gobolku ma laha badhasaab iyo waa maayar waxa weeye haddaan arrintaa wax laga qaban wallaahi oo bilaahi oo tallaahita ka dhacda in laga sheekayn halkan aanu joognaa waxa weeye waa waddada hargeysa oo Omar soo jeedkeeda ah halkan waxa ka socda sees nin aanu dhulaaw lahayn iska seesanaya ayaa ka socda oo loo dhisayo maamulkii madaxdii lacag la siiyey oo dadkii masaakiinta ahaa taayirka la marinayo waxa uu leenahay madaxweyne dalkaagan u soo diro cid ku eegta dadkan cid wax dhacaya cid ku eegta waxa uu leenahay cid u soo diro وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي قاعد بلشة تي في مقالة حبيته